safiirka safaaradda dalka Djibouti ee Somaliland Xuseen Cumar Kawaali oo maanta shir jiraad ku qabtay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa muwaadiniinta dalkiisa ugu baaqay inay iska soo xaadiriyaan xarunta safaaradda si halkaasi lagu diiwaan geliyo. Qorshahan ayaa lagu gol leeyahay in lagu socdo xaaladda muwaadiniinta ee ka hortagga cudurka coronavirus ee caalamka ku fiday sida uu sheegay Ambassador Xuseen Cumar Kawaali. Safiirka ayaa sheegay in ay fulinayaan qorshaha dawladooda ee xakamaynta cudurkaasi, fulinayaan amarka ka soo baxay xukuumadda uu hogaaminayo Ismaaciil Cumar Geele madaxweynaha dalkaasi. waxaan horta xaggani aan ka leeyahay ilaahay xanuunka la sheegayo ilaahay ha naga badbaadiyo annakii walaalaheena Somalilandba dadka reer Djibouti ku nool iyo shicib weynaha walaalaha nahay ee Somaliland dhammaantoodba ilaahay wixii islaamana ha garamariyo ilaahayna adduunka ka badbaadiyo ummadoo dhan Allah ka caafiyo. waxa kaloo xaggan uga dan leeyahay ay ujeedadeedu tahay jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele iyo xukuumaddiisu waxay meel mariyeen sidii loogu hortagi lahaa cudurka xun ee adduunka waxyeeleeyay ay iskaga dhigeen guntiga iyo gaashaanka sidii ay ummadooda u wacyi gelin lahaayeen ee hadduu ilaahay la qabto ay uga badbaadin lahaayeen. waxa weeyaan inaan wacyi gelino ayaan xaggan ugu talagalay dadka reer Djibouti ee ku nool geeyga Somaliland dhammaantood. waxaan ugu baaqayaa inay yimaadiin ay is diiwaan geliyaan si hulowba haddii mid wax laga arko loogu gurmado, taasoo ah amarkii uu madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti uu bixiyey shalay toole shirkii ay qabsadeen ee ka soo baxay oo xalay toole Premier Ministerka Djibouti uu ku dhawaaqay inay xafiisyada ay dibadda ku leeyihiin representant diplomatique oo dhan inay qabtaan. geesta kale safiirka ayaa bogaadiyey tallaabada ay dawladdiisu ku xakameynayso cudurka coronavirus-ka isaga oo arrintaasina ku ammaanay madaxweynaha dalkaasi iyo xukuumaddiisa. si degdegaan u qaadanay qaraarkii, si degdegaan u ayidnay, si degdega ayaan u garab galaynaa dawladdayada iyo xukuumaddayada iyo madaxweynahayaga sidaan ugu adeegi lahayn shicibkeega sidii uu horey noogu siiyey madaxweynahayaga jamhuuriyadda Djibouti amar cad u adeega dadkiina waan u adeegaynaa. waxaan idinkana naga codsanayaa dadka reer Djibouti ee geeyga Somaliland dhammaantoodba ku nool waxaan leeyahay isdiiwaan geliya kaalaya ilaahayna uu naga badbaadin annaguna wixii karaankayaga iyo wixii wacyi gelina iyo wixii aan nila qaban kareennaba diyaar baan nahay. amarkana horaan u qabnay imikana waa nala siiyey. Somaliland ma jira ilaa hadda kiis la xidhiidha cudurka coronavirus oo laga helay, hase ahaatee qaar ka mid ah wadamada gobolka khaasatan dalka Itoobiya ayaa laga sheegay in tiro dad ah uu soo ritay cudurkaasi, taasi oo wadamada gobolka ku abuurtay cabsi hor leh iyo in ay ka foojignaadaan. Salmaan Cabdi Cali, Kalsan TV, Hargeysa.